tolmideeye deegaanka Ceelbardaale ee ka tirsan gobolka Gabiley ayaa labada bishan lagu qabanayaa shirka tol wanaaje oo ay qabsanayaan beel ka mid ah beelaha ugu faca weyn ee degta gobolka Gabiley waxaana caawir baahinta la hadlay salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka beel ka mid ah beelaha dega gobolka Gabiley ayaa shaaciyay shirkani goorta uu qabsoomayo iyo sidoo kale waxyaalaha lagaga hadlayo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan halkan maanta ku cilaaminaynaa oo bisha 31keedii ah shir reer xareedku ku qabsanayo Ceelbardaale oo awdanahiisa kaga taashanayo oo tolmideeye ah oo bilaabmaya bisha labadeeda dhamaanaya ilaa afarteedana dhamaanaya waxaan hadaba dadka reer Gabiley Hargeysa Soomaaliland wixii ka soo qayb gali karaya imanaya inuu fasaxu yahay oo laga soo qayb galo halkan waxaan ka shaacinaynaa ama aan ka ilaaminaynaa bisha ay tahay caawa 31 shir weynihii beesha reer xareed bare oo aanu ku qabanayno Ceelbardaale oo kaga tashanayo aayihiisa beesha reer xareed waxaanu ogeysiinaynaa dadweynaha reer Gabiley ee gobolka Gabiley iyo dhammaan guud ahaan Somaliland in la qabanayo shirkaasi bisha labadeeda ilaa bisha afarteeda oo arbacada inagu soo aadana hadii Ilaahay yiraahdo sidaas aanu ilaaminaynaa waxaan ilaaminaynaa oo aan u sheegaynaa dadweynaha Somaliland iyo gaar ahaan Gabiley iyo Hargeysaba in shirkii tolmideeye aanu ku qaban doono Ceelbardaale taasoo lagaga tashan doono danaha reerka beesha reer xareed sidaas aan u ogeysiinaynaa in laga soo qayb galo waxa aan ogeysiinaynaa dhammaan Somaliland guud ahaan gaar ahaana gobolka Gabiley in shirkii tolmideeye ee beesha reer xareed uu ku qabsoomi doono Ceelbardaale bilaabmi doonana bisha labadeeda oo ku beegan arbacada soo socota dhammaan doono Ilaahay idamkiis bisha afarteeda waxa uu noqonayaa shirkaasu ama uu yahay u daran yahay inuu noqdo shir tolka mideeya anay kaga tashadaan aayahooga iyo arrimaha dantooda ah waana shir nabadeed way la xajiyay telefishinka qaranka